Hello. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idin ahaantiinba meel walba aad daafaha dunida naga daawanaysaan kusoo dhawaada Oromia Media Network. daawadayaal qodobada aanu maanta barnaamijkeena ku falanqeynayno xaaladda guud ee deegaanka Somali State halka ay marayso maanta. barnaamijkaas ayaan guud ahaan waxaan ku eegaynaa qodobadeena maanta ee sida aan adii sheegay xaaladda guud iyo mid gaar ahaaneed ee deegaanka Somali State halka ay marayso maanta ayaanu falanqeynaynaa. barnaamijkaasna waxaa idin falanqeynayaa rag khubara oo aan isleeyahay ee arrintaasi si wanaagsan bay la socdaan oo ka soo jeeda deegaankaasi saddexdooda. waxay kala yihiin martida maanta barnaamijkeena nagala qayb galaysaa halkan diyaar idinkugu ahaa inay arrintaasi idin kala dhigdhigaan xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka waqtiyadan ugu dambeeya ama maalmahan ama shalay ama maanta. sida aad la socotaan aan filayo dhammaantiin aad wada garanaysaan Sheekh Horseed Nuux oo degan dalka Mareykanka. waxaa kale barnaamijkeena nagala qayb qaadanaya Maxamed Ciise oo isagana degan dalka Mareykanka oo ka soo jeeda deegaankaasi. sidoo kale barnaamijkeena waxaa maanta marti nooga ahaa Maxamed Sheekh Cumar oo isagana ururka Siraaj madax ka ahaan jiray oo degan dalka Mareykanka. saddexdoona ka soo jeedaan deegaanka Somali State ayaa maanta waxaa halkan diyaar idinkugu yihiin xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka wax ka socdo iyo wixii cusub ee kusoo kordhay ayay diyaar idinkugu yihiin. aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin martiyaasheena sida quruxda badan aad nagala kasoo qayb gasheen barnaamijka. waxaa kale aad iyo aad aan mahad ugu celinayaa aan u jeedinayaa daawadayaasheena sida quruxda badan aad nala socotaan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Daahir Mudiir, dhanka farsamadana waxaa naga caawinayaa Mahdi. kusoo dhawaada martideeda dhammaantiinaba Oromia Media Network. Adowna. iminka barnaamijkeena ayaan si rasmi aan guda galaynaa. ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan aansiiyo su-aashayda ama su-aashii ugu horreysa aan jeclahay inaan ku bilaabo fadiilatu Sheekh Horseed. bal waxaad inooga warantaa sida aan la soconno deegaanka Somali State ayaanu maanta falanqeynaynaa umuuraheedii iyo arrimaheedii halka ay marayso. sida aan la soconno deegaanka waxaa ka dhacay isbedel ayaa ka dhacay. runtii isbedelkaasi caalamka iyo Ethiopia iyo meelo badan loo mahadceliyay in si qurux badan ay wax u socdaan. bal xaaladaasi wili ma sida quruxda badan ay ku bilaabatay miyay ku socotaa mise waxaa jira wax caqabad oo ku noqday isbedelkaasi sida uu hore u dhaqaaqi lahaa? xaaladdu muxuu ku sugan yahay bal dadweynaha ku daawanayay u iftiimi wax ka socda deegaanka shalay iyo maanta. بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا محمد وبعد. مدن الظاهر iyo bahda OMN waa mahadsantihiin hawsha qaymkeed umada mar walba u haysaan. waxaan u mareynayaa in Sheekh Horseed qadka uu xagga cilada farsamada u galay. bal su-aashaas waxaan ku siinayaa Maxamed Sheekh uu soo laabtay ayaan filayaa. daawadayaasheena naga raalli ahaada daawadayaasheena sii wado Horseed oo sii wado. daahir waxaan leeyahay awalan waxaynu ognahay isbedelkeena intayna ka hadal waxaa gobolka ka jiray nidaamkaasi wuxuu ku sifaysnaa waynu wada ogeyn. wuxuu ahaa runtii nidaam sheeko iyo shaahitoona aan lagu arag lagu maqal waxyaabaha uu kulansaday oo dhan. waxaa intaa dheer wuxuu ahaa nidaam burburiyey dhammaan ahdaaftii diinta islaamku ay beegsanaysay ee loo soo dejiyay. hadday noqon lahayd ilaalinta nafta qofka, hadday noqon lahayd ilaalinta cirdiga qofka, hadday noqon lahayd ilaalinta maanka qofka, akhlaaqda qofka, cadaaladda, dhammaan nidaam ku tuntay buu ahaa. iyadoo saa tahay yaa ilaahay fadligii ummadda ilaahay wuxuu u keenay marka nidaam aanu aragnay muddadii yarayd uu jiray waxa uu keenay. waxaynu aragnay dhammaan dowladihii deeqbixiyaasha ilaahay baa deeqda bixiyay oo gobolka wada yimid. waxaanu aragnay nidaam dhalinyaro wadankii ku dhalatay aqoon-yahana shahaadooyinka ugu sarreeya wata lagu soo xulay. waxaanu aragnay nidaam dadkii shalay labada dhinac ka lahaa jabhadda ONLF hadday noqoto iyo ciidankii Liubolisku ay maanta shaaha wada cabayaan. waxaan aragnay nidaam intuu dhaafay gobolka xitaa beelihii kale Soomaaliyeed ee maaragtay muslimiinta ahaa ee aafadu dhex dhigtay ugu yeeray gobolka walaalnimo dhex dhigay oo waan ogeyn guulihii laga soo hoyay alxamdulillah dhinacyada maaragtay duleedka laascaanay iyo dagaaladii ka dhacay. waxaan aragnay nidaam xitaa dadkii walaalihii Soomaaliyeed ee dhanka Somaliland joogay u yeeray oo wax dambe oo dhiba inaana iman. ummaddu intaa markii aragtay marka yaa sideedaba waxaa iska jira ashkhaas
zaxmadda iyo dhibaatooyinkii laga soo tegay haddaanay arag aanan noolaan karin aadamuhuna mar walba saa waa u samaysan yihiin ilaa waagi rasuulka sallallahu alayhi wasallamna way jireen dad noocaasa haddaba bulshadu maanta waxay aragtay ama maalmihii hadda u dambeeyey ama intuu nidaamkani jirayba ashkhaas ku dhex dhuumanaysa hadday noqoto dhanka federaalka iyo hadday noqoto dhanka localka deegaanka ahba oo nidaamkii mar walba jallaafo ku haysa waxaanu ognahay si isdaba jooga in loola hadlay si walba wax loogu sheegay marka maanta bulshadu waxay arkaysaa dad doonaya bulshadii markay ku soo noqotay waddankoodii oo ay barwaaqadan iyo nabadan iyo walaalnimadan waxaanay aragtay ashkhaas markoodii horena ka tirsanaa nidaamkii hore bal ee ka ahaa horseed iyo horjoogayaal iyo hogaamiyaal ka ahaa burburkii iyo akhlaaq xumadii iyo dilkii iyo kufsigii iyo isku dirkii bal ee arrintii la dhex dhigay qadiyadda ee la dhex dhigay mujtamaca oromada ah iyo soomaalida dadkii mas-uulka ka inay maanta soo noqdeen oo ay rabaan inay afgambiyaan xisbiga oo ay rabaan inay bulshadii mar labaad isku diraan oo ay rabaan nidaamkii dulmiga ee mugdiga in lagu noqdo taas way midda hadda aanu la noolahay ee meeshan u nimid inaanu ka hadalno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sheekh horseed maxamed ciise waad maqlaysay sheekh horseed sida uu wax u dhigay wuxuu yidhi isbeddelka deegaanka si fiican buu ka hana qaaday dowladdana intay dhalatay wax badan bay qabatay laakiin waxaa jirta caqabad iyo shakhsiyaad gaar ah ee doonayaan isbeddelkani inay fashiliyaan ama afgambiyaan noo faahfaahi dadka ku daawanayay maxay tahay yani mugdiga uu ama shakiga uu muujinayo sheekh horseed adigu arrintaasi sideed u aragtaa daahir waad mahadsan tahay adiga iyo bahda OMN waxaana iyagana salaamaya akhyaarta martida igula jirta saaxiibkay maxamed sheekh cumar iyo sheekh horseed runtii waa inta uu horseed sheegay daahir oo adiguna dadka isbedel doonka iyo aaladda isbedel doonka kacdoonka Ethiopia oo dhan iyo deegaanka Soomaalida kan ka curtayba dul joogay xogogaalka u aabadahay isbedelkan kacdoonka shacabka ku yimid una nasiibka u helay ninkii isagu hurmuudka u ahaa mudane Mustafa Umar oo hurmuud u ahaa kacdoonka inuu madaxweyne caretaker ah oo noqdo oo dadkan u manage gareeya xilliga kala guurka ah ayaa meesha uu yimid waxa ahayd wadawgeed meel waxay ahayd qashin qub ah eber ah zero ayuu ka soo bilaabay miracle sida mucjisada noqotay deegaamadii kale oo dhan ee Ethiopia deegaanka ugu xasiloon inuu maanta noqday waad ogtahay oo xitaa deegaanka dariska ee Oromia waxa ka jira waad aragtay ninkii nooca ahaa 5 bilood 4 bilood ee guurguuranayo waxaa jira dad nidaamkii hore ka haray oo gacanto midig ahaa oo dadka xidhan ee nidaamkii hore laga xidhay ee dambiyada u xidhan ama inta cararay ka soo hadhay oo 4 biloodba uu isagu u samreeyay uu dhahayay war hurmuud ogolaada in hore loo tallaabsado iyaguna 24 hours waxay ka shaqeynayeen jallaafeynun maalin walba sidii wax lagu dhici lahaa sidii madaxweynaha loo ma taqaana jallaafeyn lahaa sidii meelo kale iyo dad kale wixii TPLF loogu shaqeyn jiray in haddana isku dayaan nidaamyadii nooca ahaa lacag kasta laaluush kasta iyagoo bixinaya inay sidaa ku shaqeeyaan ugu dambeyn last couple weeks dardar cusub ay soo geliyeen raggii qaxayna xitaa dib u soo noqdaan Addis Ababa iyo ilaa Turkiga dadkii gaaray inay dib u soo noqdaan inay lacagihii dib u soo geliyaan dadkii aad ogeyd ummadda Soomaaliyeed ee Somali state dibaatada aragtay ku sameysay waxay geed dheer iyo geed gaababa u fuuleen inay madaxweynahan cusub ay jallaafeeyaan qol madowna ay damcaan suuq madow sida bangiyada loo raab gareynayo wadanka Ethiopia waxa ka wada socdo dhan in hadcad ummadda maanta Jaaniska haysata ee fursadda haysata ee caalamku ugu qiray dawladaha dariska ugu qoray shirkii BRDF ugu dambeeyay loogu qiray inuu Somali state maanta yahay ka ugu xasiloon in dib loo celiyo hankoodii oo rajada kaliya maanta Soomaalida u ifaysa iyagoo target gareynaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa shaqada sida fiican u wada ayaa ma taqaana ay mu'amaradii ugu weyneed sameeyeen kuweeshinku marka waxa weeyaan dadkani mar dawladii dhaxay hoos galayaan mar caasimadii Addis Ababa hoos galayaan mar dawladii deegaanka ayay ku dhex dhuumanayeen intii horena waa la arkay laakiin maanta iyo ilaa shalay weegan un bay kor u soo baxeen oo madaxa kor u soo qaadeen waxa markaa shacabka Soomaaliyeed maanta waa shacab soo jeeda xoogagii isbedel doonku waa dad soo jeeda
xaaladani marnaba inaan meeshii lagu noqonayn unbaa maanta meesha taagan waa intaa waxa cusub waxaan ku dari doono kulley maxamed sheekh Horseed baa dhameeyay laakiin maxamed sheekh Cumar baan uga baxaya محمد شيخ محمد واد مقليسه محمد شيخ عمر waxaad tahay runtii qof oo wax badan arrimaha deegaanka u halgamayay ee u doodaya dadka xuquuqda dadka dulman kaalin koobadna waad ku jirtay isbedelkii ka dhacay deegaankaasi sida ay muujinayaan labada martida in dawladani ay dadaalayso oo dadaal fiican ay hayso oo hore u socoto laakiin ay jiraan dad ay doonayaan inay dawladdan hore u soconin cagta ka xirayaan yani bajarinayaan doonayaan inay fashinayaan caqabad ku ah bal intaan arrimaha kale su'aalahaas aan galin isla su'aasha raggan aa weydiiyey adigu dhankaaga ma fikrad ka duwan miyaad qabtaa mise raggan aad ku raacsan tahay maxaa ka jira deegaanka bal haddii aad wax kusoo kordhinayso بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin kolley anigaa hadhay looma hadlaa la odhan jiray walaalka sheekh Horseed baa ka hadlay maxamed ciise ka hadlay waynu wada ogeynoo dee isbedelkani kumaanu imanin ma garanaysaa doonitaan shakhsiyaad ay wax doonayaan keliya kumaanu imanin wuxuu ku yimid doonista shacabka ayuu ku yimid oo dhibtii laga tirsanayay dawladii hore ee 27 sanadood wadanka soo xukumaysay qaybtii ugu weyneed waxay ku dhacday gobolkeena iyo gobolka kale oo jira laakiin qaybta ugu badan ee dhibtii nimankaasi ay geysteen waxay ku dhacday gobolkan deegaanka Soomaalida taas baa keentay markaa shacabku inay ka hor yimaadaan oo ay u rasamaystaan oo qaarkood ay dagaalamaan qaarkood ay qalinka ku dagaalamaan qaarkood ay afka ku dagaalamaan oo magaranaysaa meeshii isbedel markii dambe uu ka yimaaday dadku ay mahadiyeen markaa sidii sheekhu sheegayay yani sheekhu wuxuu noo sheegay intii wanaagsanayd oo dhan oo dawladdan ay lahayd dawladdii hore markaa waxay lahayd intaa sheekhu inoo sheegay cakiskeeda haddii dadka la soo wada daayay oo maanta dadka ay xorriyad haystaan dadka waa la xidhi jiray xorriyadna maanay haysanin maanay hadli karaynin waxaan doonaynayo waxaasaan diidanahay midna maana odhan kari jirin dad baa 1500 qof baa lagu haystay meel cidla oo u ekay magaranaysaa nooc gumaysiyo kala meeshii bayax loo oran jiray tiima jirta maanta jeelogaadeen oo kala tusaalayaal baan ku siinaya ayaa jiri jiray isagana oo dad caalamku ay indhaha ku wada hayeen oo 8 page ay ka qortay qolada Human Rights Watch yani dhibkii meesha ka jiray uu badnaa dhibkii intii leekaa haddii 4 bilood oo keliya tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray in uu ku jiro maanta inta loo soo kaco la yiraahdo magaranaysa halkii baan dib ugu noqonaynaa taasina lafteedu wax la qaadan kara maaha marka isbedelkan ayaa ka soo horjeeda waxa ka soo horjeeda cidii 27 sanadood dadka soo gumaysanayay ee madaxa ka saarnay kuwii network-koodii iyo shabakadkoodii baa shaqaynaya kuwii baa doonaya inay lugta qabtaan waayo iyaga dantu waxay ugu jirtay inay xoolaha ummadda boobaan inay dadka isku dilaan inay qoomiyadaha isku diraan saas bay wadanka ku hogaamin karayeen markay arkeen maanta Ethiopia inay xorriyad u soo baxday oo dadkii nin walba dantiisa uu ka fikirayo oo iyakii gobolkooda kaliya ay ku koobnaadeen ayay qaadan kari waayeen Soomaalidu waxay tiraahdaa nin yani hadduu ninkaa tagay dadkii ay ka raystaan dhib buu lahaa ninkaas looma darsanin oo adiga ceebtaada haddii aad meesha intaad ka tagtay lagu darsan waayo oo dadkii ku sheegi waayaan yani waxaad ahayd nin dhiboolaa baad ahayd oo taas ceebtaadii banaanka soo dhigaysaa dawladdii ka dambeysay dadkii waxay noqotay cadceeb soo baxday oo yani dadka ay wada hadli karayaan dadkii ay tashan karayaan aanu jirin magaranaysa qof ayar la iska xidhaa xoolihii la boobaya aanay jirin wixii oo dhan markay arkeen ayay ka xumaadeen iyagiina suuqlaan baa ku dhacdo dee bannaan bay soo taageen marka waa inay waxoogii dib isugu soo xidhxidhaan hawl dhib yarna maaha oo 27 sanadood waxaa dhiigga kusoo raacay yani 4 bilood oo keliya 6 bilood oo keliya in lagu suuliyaa wax dhib yar maaha laakiin significantly baynu aragnay in waxaasi hoos ugu dhacay oo dadku dawladnimadii ay la soo qabsanayeen oo haddii gobolkii aad tagtid aad ku arkaysay kumayaal qof oo markii hore ka qaxay oo dib ugu soo noqday yani dadkii banaanka joogay hadday tahay qaxootiyaasha wadamada jaarka ah oo dib ugu noqonaya dadkii dibadaha joogay oo dib ugu noqonaya yani dadkii oo hadli karaya dadkii oo aan ka cabsanaynin in la xiro in la dilo in la kubsado waxaasoo dhan ayay doonayaan in haddana dib looga noqdo oo yani halkii aynu ka soo goonay aynu dib ugu noqono marka dhibtaasi way jirtaa aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh Horseedow waxaan halkaan ka dareemay inaad saddexdiinaba aad isku raacdeen inay weyn doonayso in ma garantay isbedelkan hadda deegaanka ka dhacay ay jiraan dad doonayaan inay meeshii shalay ay ka yimaadeen ay ku celiyaan
bal sheekh horseed oo sidaa la socno dowladda Mustafa waxay ku timid kacdo shacab ay ku timid isbedelka deegaankaas ka dhacina waa la wada ogyahay wax maanta aan halkaan aan ka sheegi karo ma aha waa wax caalamka dhan oo la socdo shalay waxaad aheedeen halkaan idinkoo fadhiya halkaan hadleyseen ehelkiina halkaas jooga ayaa lagu xiri jiray maanta deegaankaasi ma jiro cid ma garatay xorriyatul qowl ama cadaalad ama sinaan arrimahaas oo dhan iyo jenogaadeen iyo ururadii soo laabtay iyo waxyaalo aan tirin karno ma isbedelka deegaankaas ka dhacay وهذا هيئتها ووين كعالم كنا هالكاس يكون سعنيان هرمر إيه ودن كان runtii bulshadii ay ka nasatay soo marka ayaan darro ma aha haddii aad tihiin Soomaali shalay halka meesha aad ka timaaday waad ogtiin Ethiopia oo dhan markuu isbedelka ka dhacay waatan deegaanka Soomaalida goojo yar aad tiraadeen sida aad ku tilmaanteen wax ka dhicin isbedelkan Ilaahay idin keenay inaad hana weydaan oo aad salka dhigi weydaan oo aad ka faa'iideysan weydaan inaad qoladii shalay muddo 27 sano sida aad sheegteen maanta ay doonayso isbedelkan inay hor istaagto ee fashiliso halkii ay iyaga ku soo laabtaa dareenka shacabku muxuu yahay waa may waajibaadka saaran shacabka si ay u dhowrsadaan xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelka deegaanka ka dhacay maxaa looga baahan yahay shacabka daahir adaa dhameeyay waa saad u sheegtay in wixii 27 sano ummadda xasuuqayay dilayay bahdilayay ay soo noqdaan ama isku badayaan inay soo yaan daro rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka muslimka god laba jeer lagama wada qaniino godka marba shacabka laga qaniinay insha Allah waxaan leenahay mar dambe ma dhacayso maxaa yeelay dadkii adoomaha Ilaahay ahaa ee shalay istaagay ee dulmigan qaadan waayay wali way taagan yihiin adduunkana aaladahan aan ku wada hadlaynaa wax walba hadda inoo sahlaya in la wada xiriiro waxaan rabaa marka inaan ilaahdo waxaan rabaa bal inaan shacabka weydiinoon ilaahno maxay diidan yihiin iyagu ma waxay rabaan in muassasaadkii shalay jiray la soo celiyo ma waxay rabaan xabsigii la xiray in dib loo furo ma waxay rabaan jabhadihii iyo nabadan hadda timid in jabhaduhuna ay dib u baxaan liyobooliskuna ay sidoodii hore ku noqdaan waxaan uga fadhinaa bal nimanka waxa ay diidan yihiin ee dhibaya maanta ee mar ay Addis Ababa u tagayaan mar ay Jigjiga u imanayaan marra dadka qurbaha jooga ay u wareerin hayaan ay ula soo hadlayaan oo waliba magacyadooda waa la wada hayaa ay u leeyihiin maaragtay wixii waan kala tuuray inay noo sheegaan waa maxay waxa ay diidan yihiin xujada labaad waxa weeyaan daahir shalay way joogeen intooduba way joogeen inta hadda wax diidani shalay way joogtay waxayna qayb iyo hormuud ka ahaayeen nidaamkii ceebta taariikhiga ay raacday magaalada Jigjigaan ka imid wadankii baan dhex maray daahir saddex qof markaad aragto wada socota laba la xiray laba qof markaad aragto mid baa la kursaday ceebtaasaa wadankii taala dadkii maanta xitaa banaanka soo istaagi lahaa ma ah marka shalay maxay uga hadli waayeen oo cabdi markuu meesha joogay taliskii hore marka uu joogay maxay u oran waayeen iscazil maxay u oran waayeen wadanka waxan laga day maxay u hadli waayeen dhammaantood hal xisbi bay wada ahaayeen taasay shirka ku ahaayeen waxaa ilaahay loogu mahadiyaa maanta xoolihii ay shacabka ka dhaceen in guriyihii dib laga soo saarayo marka daahir waa ayaan darro jirta inay isku dayaan runtii mar labaad inay soo noqdo waxaana leeyahay runtii waxaa keenay waa dulqaadka runtii madaxweyne Mustafa iyo ku-xigeenkiisa iyo dawladda hadda jirta oo runtii saan isleenahay ka warhayno ka shaqeynaysa bal dadkan in ma aragtay la isu keeni karo la isku hayn karo tiibay marka waxay moodeen dadku inay dhaqamo yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa daahirow bulshadu maanta way soo jeedaa dawladda Ethiopia maanta Prime Minister Abiy iyo xukuumaddiisa waa inay ogaadaan nidaamkaas waa xagaaga daawadayaasheen idinkoo naga raalli ahaa waxaan filayaa inuu sheeka oo qadka uu ka go'ay bal aan ku siiyo maxamed ciise adiga ayaan ku siinayaa may maqashaa maxamedow si fiican maxamed hadda waxaad halkan aad ka dhawaajiseen in ay jiraan dad doonaya isbedelkan inay fashiliyaan meeshii laga yimid ay ku soo celiyaan bulshada bal sida ay bulshadana daawanayso u ogaanayaan dadka doonaya isbedelkan inay fashiliyaan يعني deegaanka wuxuu leeyahay madaxweyne ayuu leeyahay sharci iyo kala dambeyn ayaa jirta madad dawladda ka tirsan xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida ka tirsan baa dadka ay doonayaan maanta caqabada inay noqdaan mise dadkii hore ee haraagii ka soo haray abdi iyo heega iyo dadkii intay soo aruursadeen ay waxay rabaan laba kacleen ama
يعني دبل جيبس يعني wax kale may rabaan bar sida bulshada u fahmayaan dadkii daawanaya aan xaaladda la soconin dadkan waa dad ceenkee waxa weeyaan daahir waa mahadsan tahay sida horta aad adiguba qirtay walaalada kalena qireen waad ogtahay Somali state maanta marka loo compare gareeyo stateadii kale ee Ethiopia ku jiray isbedelku ka dhacay inuu yahay kan maanta ugu xasilan sida ay dawladda dhaxaba ay qirayso waxaa markaa jira 4 bilood madaxweynuhu dabeecadiisa iyo ku-xigeenku waxay fidiyeen in si walaaltinimo ah dadkii aanan waxba wali inta aan sharciyadii iyo institutionadii iyo wixii la soo kicinayo xooga mayna saarin dadkii dambiilayaasha ah ee jigjiga joogay oo 2 ruux ama 3 ruux ka joogeen inta laaba laga qaado waxaa markaa diidan nidaamkii hore dadka 27 sano dadkii la cadaabayay intii la xiray mooyaane inna way carartay oo dalka dibadiisa ka baxeen ilaa Turkiga iyo meelo kale lagu soo iyagoo lacagta ummadda qaatay inna dawladda ay nasiib u helaan inay galaan intii dawladda nasiibka u heshay waxay dhufays ka dhigteen dawladda nidaamkeedii iyo dawladdii dhexe waxay markaa ka shaqaynayaan 24 hours aduu markaa hadda istiraado isteedkee talaabo laga qaadaya oo isbedel laga qaadaya isteedada gubanaya ama carqaladahu ama qulqulatooyinku ka socdaya niyadada ku soo dhacaya waxa ku soo dhacaya isteedka hadda Tigreega kale oo nidaamkii hore dhan uu wada guuray waxa weeyaan marka isteedka Soomaalida iyo madaxweynaha iyo hadda ku-xigeenka caretakerka ee jabhadii keenay dagaalkii joojiyay nabadii daliyay waxaan qeyr caadiga la filanayn ku guuleystay lama filanaynin in mar labaad dadkii waxaan sameeyay oo aan xishoonaynin ay madaxa kor u soo qaadaan waxa weeyaan laba sababood marka uma suuro gelinayso madaxweynaha iyo shacabka hadda ku-xigeenkiisa yimid shacabka maanta rajada ugu dambeysay hayaan weeyaan waqtigii hore ka lumay shacabku mid u diyaar in laga lumiyo maaha activistayaashii iyo halgamayaashii iyo organizationadii iyo jabadihii dulmiga inta badan diidanaana madaxweynahan iyo waqtiga kala guurkaan bay waqti siiyeen waa dad diyaar ah oo u diyaara inay last minute u dagaalamaan inaanan isbedelka laga carqaladayn habka kaliya markaa isku halayn karayaan waxa weeyaan maanta waad aragtaa gobolkii stateka Tigray ayaa wax laga qaadi laayay iyagoo oo dawladda federaalka caayay iyagoo dhahaya waan ka baxnay waa la soo fariisin kari laayay sharciyad marka xisbi burburay oo madaxdiisii jeelka ku jiraan oo qaar ay qaxeen qaarna ay hareen oo ayna xilal haynin 2 ruux oo ka soo haray inay midba meel ka soo qabtaan oo ay dhahaan Addis Ababa ku shiraynaa madaxweynahan iscasil dhahayna dawladda federaalkaanu ka haysanaa taageero kuweeshinka markaa waxa taagan qof kastaba maanta shacabka Soomaaliyeed ee Somali state wuu kacay activistayaashoodii way kaceen organizationadoodii dib u kaceen madaxweynihii iyo laamihiisa iyo dawladdiisina warcad baa laga sugayaa waxaa markaan oo kale iyagana la sugayaa guud ahaan Ethiopia isaad xalay way ka hadashay OMN maanta waad ka hadlaysa dawladda dhaxana waa laga sugayaa oo Abiy Ahmed laftiisa waxa kaliya lagu taageerayaa waa inuu wadada saxda ah ku socdo oo aniga iyo dawlad kale iyo cid kale xaqooga uu dib loogu soo noqonin marka qof walba ama dawlad dhaxa ha noqoto ama qowmiyad activistayaashooda aanu dulmiga wada diidanayn ha noqoto ama Somali state shacabkiisiiba ha noqdeen shacabka waxa maanta u baahan in loo cadeeyo inaanan loo lug qabanaynin dadkii dambiilayaasha ah dadkii ka haray intay iska tagi lahaayeen ay dadka u banayn lahaayeen madaxweynahan iyo ku-xigeenkiisa shaqada fiican qabanaya ee waqtiga kala guurka uu dadka ku simaya inay jalaafada laga deynin waxa inta dheer daahirow waxa jira ururo sida anagu hadda aan ka mid nahay maxamed sheekh Umar uu la joogo ururo kale jabhada adarkaysay dad han siyaasadeed lahaa ama Oromiya ha ka jirto ama gobolada Amxaarada ha ka jirto oo dalka ku soo laabtay intaasoo dhan elite-ka dadka Soomaalidu waxay isku raaceen inaanan la isgarab yaacin inaanan madaxweynahan iyo ku-xigeenkiisa lagu shidin in waqti la siiyo ninkii markaa doonaya ama ururkii doonaya inuu tartamo marka doorashada la gaaro inuu barnaamijkiisa siyaasadeed keeno laakiin habkii hore ee gabrawaaxid iyo generaal TPLF ka tirsan baa qol madow dadka ku soo xidhaya oo isbedel aan loo joogin baa la qabanaya beenbeena oo laga hadlo wax jiro inaana dib loogu noqon riwaayada la joogin ummaduna ay ku daba faysho madaxweynaha iyo ku-xigeenka hogaaminaya ee u hogaaminaya inay ka samata bixiyaan dulmigii iyo halaagii ay ku jireen
meel iftiinana iyagoo midaysan u soo bixiya marka walaal waxa weeyaan su'aasha koobani dadkii ku caana maale ka faa'iiday unbaa raba inay soo ceshadaan iyagoo lacagtiina haysta galaangalkiina haysta kolba meel bay ku dhex dhuumanayaan waxayna ku dhex dhuumanayaan dowladda federaalka iyo Somali state lafteeda dowladda u dhalatay ay ku dhex dhuumanayeen ilaa ay labadan week banaanka u soo baxaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maxamed sheekhow waad maqlaysaa saxaabtaada sida ay wax u dhigeen ee halkaas ay ka caddeeyeen dadka aan doonaynin isbeddelka inuu ka hana qaado ama salka dhulka uu dhigo ama uu hirgalo waad maqlaysaa sida ay u dhigayaan saaxiibadaada maxamed sida ay dadka badan ay sheegayaan dadkii hore muddo 27 sano dalkan xukumi jiray ama dowladda federaalka ha ku jiraadeen ama kuwa deegaanka ha ahaadeen dadka waxay leeyihiin ninkii shalay tuubo biyo wax ku cabi jiray maanta haddii koob wax lagu siiyo ma yeelayo ninkii shalay oo maalintiiba 1 milyan oo lacag galaysa faa'iido ah maanta haddii la 10 kun oo bir baa kusoo galaysa ma yeelayo waxaani ma wax noocaasba mise dad oo u arka isbeddelkan hadday arrinta ay tahay oo maanta lagu dhaliilayo dowladda deegaanka ee Mustafa oo 5 bilood ama 4 bilood ay jirto inay suganayaan sida uu ku dhawaajiyay maxamed ciise si dimuqraadiyad ah xor ah inay ku tartamaan haddii ay ku guuleystaan waddanka la yidhi aan marnaba sida ra'iisul wasaarahana uu ku dhawaaqay cid allaala cidii isku dayda inay isbeddelkan hor istaagto ama federaal ha noqoto ama deegaanka ha noqoto waxa wacdi buu yidhi inaan lacagta marinayno marka kooxdan see u doonaysaa inay meeshii shalay ee ummadan ay ka soo baxday godkii iyo mugdigii shalay ummadda ku soo baxday ee doonayaan inay ku soo celiyaan hadday wax dhaliilanayaan hadday cabasho qabaan si tartiiba oo nidaam ah intay la fariistaan madaxweynaha la fariistaan xisbiga la fariistaan hadday is afgaran waayaan odayaasha dhaqanka culamaa diinka waxgaradka intay la fariistaan khilaafkoodii siday u xallin lahaayeen ayaa loo baahan yahay miyaa loo baahan yahay in xoog iyo carqalado iyo arrinta inay u malaynaysaa inay ku guulaysan doonaan aad baad mahadsan tahay daahir badankeedii adiga inoo sharaxay khayr allah ku siiyo nimankan waa isbedel diid isbedelkaasi waxay u diidayaana waxa weeyaan waxay ku seegeen inuu ognahay yacni xooggii ay dadka ku haysteen iyo xoolihii ay dhacayeen iyo waxyaalo badan bay meesha ku seegeen markaa tan rajada gelisay in ay dib u soo noqdaan oo ay isku dayaan iyadoo 6 biloodba la gaadhin in ay magaranaysa haddana dib usoo foorcaan oo ay wadankii intay afgambi nooc kala intay ku qabsadaan xisbigii iyo meelaha iyagoo soo maraya yacni ay sidaa iskugu dayaan in ay waxuun samayn karaan iyagoo dhibkaynu soo sheegnay oo dhan la sameeyey siday ku dhacday su-aasha ugu fiican taas ay ahayd baan filayaa taas markaa 2 sababood bay ku dhacaysaa misaan qabo waan santanaan karaa bini aadan baan ahay walaalahayna way ku dari doonaan haddee rabaan midda koobaad waxay ahayd markii lasoo yabyabayey nidaamkan iyo wanaaggan aynu haysano maanta ayaa waxa iiga dhex muuqatay in naxariis badan la sameeyey walaalkan maxamed ciise oo kale uu sheegayay taasina ay sababtay in dad xataa nidaamkii hore ka tirsan ay dib ugu soo noqdaan oo sistamka dawliga ay soo galaan markay soo galeen oo kuwaasi ay halkaa istaageen ayaa haddana waxay takale labaadna waxay noqotay xorriyaad fara badan baa la helay xorriyaadkii la helayna dadkay uga mid ahaayeen hadday xorriyatul qowl tahay hadduu qofku yacni siduu doono u hadli karo siduu doono u dhaqmi karo aan idin garanaysaa kaale oo fadhiiso oo waxba la weydiinay sub kaloo saddexaad oo ku dari karaana waxay tahay yacni dadkii gaboodfalka sameeyey oo aynu wada garanayna dhammaantood hebel iyo hebel iyo hebel iyagoo xorriyaadkaasi ka faa'iidaysanaya ayay suuqa iska wada joogaan jaanis bay taasina u noqotay saddexdaa markii la isku daray ayay yidhaahdeen intay is eegeen oo isaa isku fiiriyeen war meesha waxbay nagama xigaana miyaynu qabsano laakiin waxay iloobeen ay duufeen in shacabkii shalay kula diiday u horjeestay maantana uu diidan yahay halkii aanay waxay doonaan waxay isbedel samayn karaan midda kale labaadna waxa weeyaan qoladii TPLF yaa iyaguna intaa waxay ku jiraan maleeg haddaad akhrido kale meelo badan haddaad akhrido 24 saac waxay ka sheekeynayaan deegaankooga xitaa kama sheekeeyaan deegaankeenna wuxuu u noqday dhufays ay dowladda diidaan oo ceebaheeda adduunka ku yidhaahdaan wuxuu noqday dhufays ay ku tusaan in Soomaaliya canfar isku dhacsan yihiin in Soomaaliya Oromo ay isku dhacsan yihiin in Soomaalida gudaheeda ay haysato waxaana ay dowladda dhexe mas'uul ka tahay saas bay iyagu u sawirayaan
dowladii daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan ee barnaamijkeeni aan ku guda jirnay aan ka hadlaynay xaaladda guud ee deegaanka Somali State halkan ayaanu ku egyahay cilad waxaana soo gashay xagga farsamada ayaa barnaamijkeenan oo ku noo soo laabtay ay sii wado marka dowladii dhaxa ayay isku dayeen haddana in ay ka faa'iideystaan oo ay magaranaysaa sidii ay berigii horeba ay u isticmaali jireen oo kale ay u isticmaalaan taana waxaan xasuusin lahaa in TPLF in OPDO ayna la mid ahayn TPLF sidii ay u shaqayn jirtay TPLF ay u gumaysan jirtay qowmiyadaha kale ay isugu diri jirtay ay isugu jabin jirtay OPDO ay ka duwan tahay inay taana aad u fahmaan baan ku celcelin lahaa intaan waqtigu ka lumin haddaba aad iyo aad ayaad u mahadsantahay barnaamijkeenana gabagabo ay maraya Sheekh Horseedow isbedelkan hadda yimid isbedelkan shacabka iskale isbedelkani maxaa looga baahan yahay shacabka sida hadda maxaad shacabkaaga aad fariinta aad u dirayso si isbedelkan garab istaagaan ee xukuumadan cusub ee garab istaagaan maxay tahay fariinta aad u dirayso shacabka in ay ilaahay ku shukriyaan ilaahay siyaabaha loogu shukriyaan waxa kamid ah nicmadu ilaahay ku siiyay inaad ilaashato runtii waxyaabaha jiridhacada igu keenay wadankii markaan aaday waxaa kamid ah in dadkii ay dad walaalo ah noqdeen oo meel wada jooga nimcada saasa iyo xuriyatul qowlka saasa iyo horumarka hadda aan higsanayno in la ilaashado isla markaana laga ilaaliyo oo laga yureeyo kuwa nicmada adoomada ilaahay siiya cadowga mar walba ku ah kuwa ka dhex baayac mushtara kuwaas in ay ka ilaashadaan una midoobaan xukuumadooda hadda jirtana ay ku daba faylaan oo wixii ma aragtay wanaagana ay ku raacaan wixii markaa basharnimo iyo khalada yimaadana iyagoo u soo maraya nidaamka wax lagu saxo midnimadana ilaalinaya mugdigii laga soo baxayna ka taxadaraya inay ku saxaan marka inay u midoobaan nicmada ilaahay siiyey isla markaana iska yureeyaan cadowga raba inuu nicmada ka qaato taasaan fari lahayn shacabka isla su'aashaas ayaan ku weydiinayaa barnaamijkeena ayaan bulshada Somali State ee bulshadeeda xukuumadan iyo isbedelkan cusub ee u timid si ay garab istaagi lahaayeen horumar ay gaari lahaayeen aan colaadan iyo iska qabsigan iyo dadkan ay doonayaan inay arrintan inay laga guulaysan lahaa